waxaan isla qaadanaynaa muuqaalkan mararka qaarkood cillad aad la kulmi karto ayaa jirto markii aad isticmaalayso in aad rabto inaad wax ku baarto mucaadalada indirectiga ah bal aan isla dabaqno si ficiladan u wada aragno kadibna aan wada xalino marka muraajaco cashirkii hore weeye iyo cillad aad la kulmi karto oo xalkeeda aan rabno in aan ku barno okay marka hore aan daatada samaysano meeshii aan wax ku baaraynay aan ku soo extract gareynaynay daatada aan samaysano kadib data tag waxaan rabaa in aan listiga qaybtaan samaysto data validation list ayaan u baahanahay muraajaca weeye intaasi source-kana qaybta bisha isoo qaad okay enter dheh kadibna okay dheh so hadda waxa weeyaan January door ama February midka ay rabto aan soo qaado dadkan waxaan ka soo qaadnaa dadkan inay yihiin dadka iibiyaasha noo ah sales personka dadka wax noo iibiyo okay waxana waxay iibiyeen marka waxaan rabaa qof walba iyo wixii uu iibiyay inaan soo saaro okay marka waxaan sameynayaa sidoo kale data validation aan dhaho list ayaan u baahanahay source kana qaybta dadka magacyadooda wax iibiyay weeye okay kadibna enter aan dhaho kadibna okay aan dhaho marka waxa ii soo baxayso Mustafa Xareed okay iyo waxa weeyaan wixii uu iibiyay tusaalahan oo kale aan yara balaarsado maadaama magacyada ay yara balaarsan yihiin oo magacyada qaarkood ay yara dhaadheer yihiin hadda marka cashirkii hore aan dabaqno cashirkii hore waxaan dhahaynay sifa aan u soo saarno sifa ay dynamic u noqoto waa inaan isticmaalno mucaadalada la dhaho indirect okay markaan isticmaalno bal aan aragno waxa noo soo baxo aan dhahno salahan oo kale indirect tamam bisha aan xirno hadana indirect okay kadibna aan dooranno qofkii iibiyaha noo ahaa kadibna enter aan dhahno waxa noo soo baxay reference ayaa noo soo baxay waxa khaldan waa maxay waa cashirka maanta waxaad ku qaadanayso okay khaladka xaguu ka imaaday khaladku wuxuu ka imaanayaa in magacan okay number 1 horta waxaan ilawnay inaan sameeyno aan tirtiro inaan ilowno ma aha maxaan ilawnay ardayba wuxuu leeyahay macallin waxaad ilowday arday cashirkii soo muraajaceeyay macallin boxkan maynan sameynin create from the selection okay create from the selection weliga ha ilaawin okay oo cashirkii ugu horeeyay oo name boxka ahaa top row gaan u baahannahay qaybta left column kana u baahannahay okay marka replacement maad u baahan tahay qaybta January horey bay ugu jirtay okay replace noo dheh February replace noo dheh March na replace noo dheh April replace noo dheh May okay replace aan ku wada dhahno okay laano jadwalkii hore hadaayay markaan sameynay ayay noo soo wada baxday okay marka hadda aan sameyno aan dhahno indirect aan sameyno tusaalahan oo kale indirect okay February weeye kadibna indirect tamam laano waa cashirkeeda ayaan soo qaadanay okay reference cilada taagan waa maxay cilada taagan waxa weeyaan marka aan hadda fiirino tusaalahan oo kale Mustafa Xareed meeshan waa maxay waa Mustafa space Xareed laakiin markii aan gala qaybtani Mustafa Xareed maxaa ii soo baxayo waxaan cashiradii hore ku soo qaadanay in name boxka uunan aqbalaynin space marka muxuu sameeyay underscore ayuu geliyay okay hadda marka uu raadiyo Mustafa Xareed ma helayo muxuu helayaa Mustafa underscore Xareed ayuu helayaa okay ciladaasi sidee ayaan ku xalinaynaa okay cashirka maanta cashirkaas weeye okay mucaadalada qaybta hore dib igama saarna dib nagama haysto xagee dib naga haystaa qaybta dambe marka mucaadala kale ayaan soo dhaxgelinayaa qaybta indirectiga okay indirect qaybta n3 oo ah February kadibna indirect kadib waxaan leenahay substitute mucaadalada substitute aan dooranaynaa substitute maxay sameynaysaa waxay bedelaysaa masaafadan ayay u bedelaysaa waxaan u baahannahay marka waxaan leeyahay okay kadib comma ayaan leeyahay okay markii aan dooranay all text waa maxay all textiga meesha noo yaalo waa space kaas aan rabnaa inaan doorno marka waxaan dooranaynaa qaybtan ay quotation aan gelinaynaa quotation kadib space okay waxaan dhahaynaa kadibna faasila kadib maxaan rabnaa marka waxaan rabnaa
masaafadan waxaad u badashaa underscore quotation kale aan furo quotation kadibna underscore kadibna quotationka aan xiro kadib waxaad ii xirtaa bracketka substitute-ka kadibna waxaad xirtaa bracketkii labaad ee ahaa indirect so maxaan dhahay qaybtan masaafada waxaad igu badashaa underscore igu badal okay markaan enter dhaho waxa soo baxayso ciladii hadaayay way xalismanaysaa so haddii aad la kulanto tablekaaga uu ka mid yahay masaafooyin haddii uu ay ka mid tahay tablekaaga waxa ku qoran masaafooyin haddii u dhaxayso aadna rabto in aad soo saarto January okay aan bedelno aadna rabto inaad kala soo dhaxbaxdo adoo isticmaalaya indirect waxaadan ka maarmaynin mucaadaladan substitute-ka inaad soo dhaxgeliso masaafadiina aad u badasho underscore ama magacii wixii kaaga soo baxay qaybtii create from selection markaad ku sameynaysay name box-ka